kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo ka socda banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Masar oo kala saxiixday heshiis dhinaca difaaca qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka rasmi radio magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa weli ka soconaya dibadbaxyo rabshado wato oo galay maalintii labaad oo xiriir kuwaasi oo ay dhigayaan dhalinyarada ku shaqaysata mootooyinka qaasatan mootobajaajta darawaladan ayaa mar kale maanta isugu soo baxay isgoyska kilomitir 4 waxayna xirteen wadadaasi oo ah mid muhiim ah oo isku socodka dadweynaha magaalada Muqdisho muhiim u ah sidoo kale waxa ay ku qaylinayeen ereyo ka dhan ah madaxda dawladda oo ay ku eedeynayaan in ay dhibaato ay ku hayaan shaqadooda qaar ka mid ah bajaajleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan xaaladda adag ee ka taagan magaalada Muqdisho iyo lacago dheeraad ah oo lagu soo rogay dhanka kale waxa goobta isaguna soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada ka tirsan ciidanka booliiska qaasatan booliis militaro oo kale eriyay dibadbaxayaashii halkaasi isugu soo baxay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diire Yabo oo qoraal soo saaray ayaa isagana ka hadlay in dibadbaxayaasha ay sharciga dhowraan wuxuuna ugu baaqay in bajaajleyda inay dhowraan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay inay shalay ay ku ballameen in wax laga qabto dhibaatada ay ka cabanayaan iyaga iyo maamulka gobolka Banaadirna ay ballansanaayeen ayna habboon tahay in ay sugaan inta la xalinayo cabashadooda sidoo kale waxa uu sii raaciyay waxa aanu ku ballanay shalay waanu idinku maqanahay cabashadiinana waa laga jawaabi doonaa warqad socoto iyo cashuur socoto oo xadid lahayn oo mataqaana iska socoto ayaa la haysata dhibaato ka weyn oo la haysata ma jirto sababtu maxay tahay shalal waa la banaanbaxay dib badan mootaale waa loo geystay gobolka 6 nin loo waday 6 nin waxa lagu soo qanciyay aanu ka idin soo wacayna haddii la warsaday waxayna aanu ka idin soo wacayna la leeyahay wax kale lama dhihin wax laga qabta ma jiraan wax laga qabad ma jira wax rajaan hadda haddana madaxweynuhu si uu ruqseeyay soo jawaabin wax aan helayna ma jirtaa ma isleeynaaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalkaasi Masar ayaa maanta shir muhiim ah waxa uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifataax Siisi shirkan oo ka dhacay magaalada Qaahira ayaa waxa ka qayb galay wasiiro ka tirsan labada dawladood kuwaasi oo ka qayb ahaa wada xaajoodyada lagu dhiirigelinayo heshiis muhiim ah oo dhinaca iskaashiga difaaca iyo amniga ah oo Soomaaliya iyo Masar ay wada yeelanayaan labada madaxweyne ayaa si wadajir ah u xaqiijiyay in iskaashiga difaaca ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Masar uu yahay talaabo muhiim u ah oo looga hortagayo in dhibaatooyin dhinaca amniga iyo xasiloonida ah ay ka dhacdo gobolka heshiiskan cusub ee dhinaca difaaca ayaa waxa uu dhabaha u xaari doonaa in ay iskaashadaan ciidamada labada dawladood Soomaaliya iyo Masar wasaaradda difaaca iyo amniga ee labada dal ayaa iyaguna waxa ay isdhaafsan doonaan saraakiil iyo waliba khubaro dhinaca ammaanka sidoo kale waxaa lagu ballamay in la fuliyo qorshayaal wadajir ah oo lagu xoojinayo awoodda ciidamada iyo waliba amniga Soomaaliya kulanka kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifataax Siisi ayaa qabtay shir jaraa'id oo ay uga warbixinayaan nuxurka heshiiska la gaaray iyo waliba qorshaha mustaqbalka labada dal labada madaxweyne ayaa aad u adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada wadan ee walaalaha ah iyo waliba iskaashiga dhinacyada kala duwan iyaga oo ka hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah oo saameyn ku leh gobolka iyo xasiloonida qaaradda intaba mudane madaxweyne Cabdifataax Al-Siisi waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda iyo shacabka Masar soo dhaweynta diiran iyo martigelinta ay u fidiyeen aniga iyo wafdigayga Masar Soomaaliya waxay u tahay xulufo taariikhi ah saaxiib iyo garab walaal oo aan wada dhisayno mustaqbal barwaaqo ku salaysan is-ixtiraam qarannimo iyo wadaagga fursadaha horumarinta danaha labada shacab iyo labada dawladood ee walaalaha ah marwooyin iyo mudanayaal wada hadalladeena maanta waxaa cad in labada dawladood ay wadajir u qorsheynayaan inay si dhow u wada shaqeeyaan si ay horey ugu sii wadaan xiriirka amni
siyaasadeed, diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale ee ay wadaagaan. daawadayaal intaas waxaa ku eg warkii aad kala socoteen Rasmi Radio. waxaa idiin soo jeedinaya aniga Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto. inta aan warkan la mid ah ku kulmayno waxaa idinkaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha iyaga bulshada nagu soo biir oo noo follow garee Facebooka iyo weliba YouTube-ka aan ku leenahay baraha bulshada.